ujeedada socdaalkaygu waxay ahayd mashaariic horumarineed oo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka fulinayso degmooyinka oo ceelal biyooda sidii hore loo sheegay mar labaadkii waxaanu kormeeraynay oo eegaynay mashaariicdii hore u qabsoomay ay xukuumaddu halkan ka fulisay iyo kuwa socda waxaanu hadda ku sugannahay degmada marsada caalamiga ee Maydh oo ay shaqadeedii gebageba ku dhowdahay ama 90% ay qabsoontay dekedan waxay ka mid ahayd barnaamij siyaasadeedkii xisbiga kulmiye oo campaignkii doorashada uu ku galay waxaana ujeedadeedu ahayd in la soo nooleeyo oo la soo celiyo wax soo saarkii iyo dhaqaalihii aynu ku tiirsanaan lahayn ee xeebaha ama degmadan Maydh maadaama ay xoolihii naga sii dhamaanayaan maadaama aynu nahay dal koraya oo doonaya inuu dunida wax la qaybsadaa waa inaynu ilaahayna dhaqaale ka shaqaysiino muhiimad gaar ah ayay dekedani u leedahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi madaxweynuhu tan iyo intii uu hogaaminta dalka qabtayna wuxuu ku hawlanaa uu ka shaqaynayay inay dekedani marka koowaad shaqadeedii qabsoonto mar labaadka inay dhisanto mar saddexaadka inay furanto mar afraadkana inay shaqayso ilaahay wuxuu ku sameeyay madaxweynaha iyadoo dhammaad ku dhow iyadoo shaqaynayso oo furantayna insha Allah taala wuu joogi doonaa waxay dekedani wax ka bedeli doontaa guud ahaan dhaqaalaha Soomaaliland gaar ahaan dhaqaalaha gobolka Sanaag waxayna noqon doontaa deked ku soo biirta ilaha dhaqaale ee waaweyn ee dalkani leeyahay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ka go'an inay mashaariicda horumarineed ee qarankana wuxuu taraya bulshada iyo dadweynahana dhaqaalahooda kor u qaadaya in miisaaniyadda qaranka laga maalgeliyo in dawladaha iyo dunida caalamka wax looga doono in dalkani uu noqdo mid isku filan oo aan cidna wax uga baahanin insha Allah taala siyaasaddaasina maanta waa mid iftiimaysa oo muuqata wayna midho dhalaysaa wayna guulaysan doontaa